ciidamada bilayska ee Soomaaliland ayaa maanta warbaahinta u sheegay inay xabsiga dhigeen Cabdiraxmaan Xaaji oo ku magac dheer Dabcasar kaas oo kamid ah dadka sida aadka u isticmaala baraha bulshada gaar ahaan mareegta Facebook-ga. Afayeenka ciidamada booliska ee Soomaaliland gaashaanle sare Faysal Xiis ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta ciidamada bilayska ee Soomaaliland ay xabsiga u dhigeen Mr. Dabcasar. inaan silada Dabcasar ciidanka booliska way soo qabteen waanu xidhayahay waxaan lagu eedeynayaa dambi ciqaabeed galay oo ah inuu dambi qaranimada Soomaaliland lid ku ah inuu galay iyo aflagaadooyin buu geystay dambigaas ku xidhan yahay sharciga waa loo sameeyay qof kasta dambiga waa la qabanayaa haduu ashriye noqdo haduu Soomaaliland noqdo qofkii dambiga waa la qabanayaa ninkaas wuu xidhan yahay kiiskiisa waa la baarayaa wixii ka soo baxana waxaan u gudbin doonaa hadii Ilaahay ka dhigo maxkamadda iyo xeelaanta dawladda ciidanka booliska ninkaas waxba uma geysan waxna lama dilinin isagu ma ku anducoonay cidisha ma jirto booliisku waa ka wax ilaaliya waa ka dadka nafta iyo maalka waa ilaaliya shaqada loo eegmada ah dadka badbaadiyaan in xuquuqdiisa ilaaliyaan waxaan leeyahay waxa uu leeyahay waa la dilay wana la fadhi oo xukuma jiraan war qofka haduu dambi galo dambigu waxa gudub kasta loo geystay sharciga ninkan dambi uu ka galay qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu geystay aflagaadooyin buu geystay sharcigeenu wuxuu dhigayaa in la qabto oo la xiro kiiskiisa waa la baarayaa si degdeg ah insha Allah waxa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeelaanta dawladda